assalaamu calaykum. Shilib waxa uu ahaa nin gaaban oo madow faqiir ah, tol iyo cid toona aan lahayn. Wuxuu cuno iyo wuxuu cabo toona muusan heli jirin. Cunto waxa ugu soo horeyn jirtay hadduu helo roodhi qalalan, hadduu waayana wuu iska soomi jiray. Waxa uu seexan jiray dhulka, goor dhaxanta ka celiya muusan haysan. Barkin waxa uu ahayd kabihiisa. Waxa uu maalin maalmaha ka mid ah soo maray nebiga isagoo dhex fadhiya saxaabadiisa. Wuu salaamay wuuna fadhiistay. Waxa uu nebigu saxaabadiisa weydiiyey, ma garanaysaan qofka uu yahay? Saxaabada badankoodu maysan garanayn xitaa magaciisa. Haddii uu soo xaadiro majaalista nebiga, cidima garan jirin. Hadduu maqnaadana cidima tabi jirin. Waxa uu nebigu ugu jawaabay, waa Julaybiib. Maalin maalmaha ka mid ah nebiga ayaa u yeedhay, Julaybiibow, miyaanad guursanayn? Julaybiib waxa uu eegay nebiga wuxuuna yidhi, oo nebi allow, yaa u guurinaya Julaybiib oo aan tol iyo xoolo lahayn. Waxa uu og yahay waxa ay dadku isku doortaan inay yihiin miisaanada lacagta iyo qolomaa tahay. Nebigu iskaga aamusay. Maalintii labaad ayuu sidii oo kale ku yidhi nebigu, Julaybiibow, miyaadan guursanayn? Isna sidii oo kale ugu jawaabay, oo nebi allow, Julaybiib cod lahayn, tol lahayn, xoolo lahayn yaa u guurinaya. Nebigu maalintaanu iskaga aamusay. Maalin saddexaad ayuu nebigu sidii oo kale ku yidhi, Julaybiibow, miyaadan guursanayn? Waxa uu yidhi, nebi allow, yaa u guurinaya Julaybiib oo aan cid iyo xoolo toona lahayn. Waxa uu ku yidhi nebigu, Julaybiib waxaad tagtaa guriga ninka hebel ee reer Ansaareed. Waxaad tidhaahaa, waxay soo diray nebiga, wuxuuna doonayaa inantiinna, aniguna ii guurinaya. Uu tegey Julaybiib. Waxaa albaabka ka furay inanta aabbaheed. Wuxuuna ku yidhi, waxay soo diray nebiga, wuxuuna doonayaa inantiinna. Intaanu hadalkii dhammaysan ayuu odaygii farxay. Rasuulka Ilaahay baa inantayda soo doontay, amaanaa diidi karaya buu yidhi. Julaybiib waxa uu yidhi, laakiin anuu ii doonaya oo ii guurinaya. Odayga farxaddii ayaa ku qabowday. Islaantii uu qabay ayaa timi. Maxaa idinku dhacay bay tidhi. Waxa uu yidhi, waxaa soo diray nebiga, wuxuuna doonaya inanteenna, laakiin waxaa loo guurinayaa ninkan. Waxay yidhaahdeen, kuma siinayna inanteenna, umana qalintid. Waxaad haysataa waad ku guursanaysaa. cid ma lihid, xoolo ma lihid, qurux ma lihid. Waxaa arrinkii maqashay inantii uu nebigu Julaybiib u soo diray. Inantaasi waxay ahayd gabdhaha reer Ansaar ta ugu qurxoon. Waxay ahayd gabadh caqiide iyo sharaf u saaxiiba, diin aan lagu gaadhayn. Waxay hadal kulul kaga soo tiri gudaha labadeedii waalid, sidee baad u celin kartaan qofkuu nebigu soo diray? Haddaad celisaan qofkuu nebigu soo diray, Ilaahay baan ku dhaartee waan bannaystay guurkayga, waxaana u aqbalay inuu Julaybiib yahay ninkaygii. Waxay ugu jawaabeen labadeedii waalid, bal hadda eeg ninkan aad sheegayso sida uu eeg yahay, bal eeg wejigiisa, shakligiisa, dharkiisa, eeg sida ay u googo'an yihiin. Xil, cid, xoolo toona ma haysto. Waxay tidhi inantii, Ilaahay baan ku dhaartee celin maayo ninka uu rasuulku ii dooray. Isla habeenkii waa loo gurigeeyey. Markay aqal galeen waxay maqleen qaylo dheer, waaba qayladii jihaadka. xaya cala aljihaad, yaa khayrallahi irkabii. Julaybiib markuu intaa maqlay uu soo baxay. Waxa uu ka soo tegay caruusaddii oo quruxdeedii iyo dhaldhalaalkeedii leh, xilli ay ku macaan tahay in aan gabadh laga soo tegin. waa habeenkii lilita cumrigiisa ahayd. Laakiin marka aad wato ruux imaaneed, naf jihaadeed, waxba uma arkaysa dhaldhalaalka adduunyo. Waxa uu soo gaadhay sufuuftii saxaabada. waxaa loo banbaxay dagaalkii. Wuu dagaalamay. dagaalkii wuu dhammaaday. waxaa yimid nebigii. waxa uu egeegayaa inta saxaabadiisa ka shahiiday. waa la istiriyey. waxaa la yidhi, cidi nagama maqna. Julaybiib cid tabaysa ma leh. waxa uu yidhi nebigu, tirada ku laabta. sidii oo kale ayaa deen la yidhi, cidi nagama maqna. waxa uu nebigu yidhi, war miyaydaan tabin xabiibkaygii? waxay yidhaahdeen, kuma weeye xabiibkaagu. waxa uu yidhi nebigu, salawaatu rabbi wasalaamu calayh, waxaa iga maqan xabiibkayga Julaybiib. nebigu waxa uu galay inuu baadi goobo. waxa uu helay isagoo jidhkiisa dhiig ka buuxsamay, dhaawacyo dardaranna soo gaadheen. waxa uu dilay 7 nin keligii. kadib baa la dilay. nebigu intuu ciiddii iyo dhiiggii ka masaxay ayuu saaray bawdadiisa. wuxuuna yidhi, Julaybiibow, anta minnii wa ana minka. anaad iga mid tahay, annaadan kaa mid ahay. nebigu waxa uu datay wejigiisa. wuxuuna yidhi, ma ogtihiin waxaan wejiga u datay? waxaan arkay dumarkiisa xuuracaynta ahaa oo ku tartamaya sidai hab u siin lahaayeen. haddaba daawade, miisaanka aakhiro ma aha waxaad adduunka ku haysato, waa jacaylkuu rabbigaa ku jecel yahay. guud ahaan intaasaynu ku soo afmeeraynaa muuqaalkeenna maanta oo aynu kaga hadlaynay geesi ka mid ah geesiyadii saxaabada una horay diinta naftiisa. mahadsanidin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.